salaamu Allaahi calaykum halkan waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah malaayiin dollar oo deyn oo lagu yeeshay filla Soomaaliya iyo fadeexad xoogan oo ka dhalatay dawladda Qatar oo dalab degdeg ah u soo gudbisay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kana codsatay in la carqaladeyn siyaasadda ay ka leedahay Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo fariin degdeg ah gaarsiiyay beesha caalamka iyo jawaabta beesha caalamka ka timid oo durba laga dareemayo Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qorsheynaya inuu xilka ka qaado gudoomiyaha gobolka Banaadir qodobadaas iyo qodobo kale oo daasanayaad ku daawan doontaan warka dunida TV haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqotaa mogana subscribe saarato YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaacisay in deyn lagu leeyahay filla Soomaaliya oo halka looga arrimiyo dalka agaasimaha cusub ee madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan ayaa la wareegay xilka gudoonka madaxtooyada kadib markii dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya agaasimihii horeete ee madaxtooyada Mudane Maxamed Cabdullaahi Ciise ayaa ku wareejiyay xilka wuxuuna tilmaamay in filla Soomaaliya lagu leeyahay malaayiin dollar oo lacag taas oo looga baahan yahay in madaxweynaha cusub iyo dawladdiisu ay bixiso waxyaabaha cajiibka ayaa ah in lacag ka badan 3 milyan lagu leeyahay filla Soomaaliya oo deyma waxayna xaqiijiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha in faylkan uu ka yaabiyay oo aan la garanayn ilaa iyo haatan halka ay lacagtaasi ku baxday filla Soomaaliya ayaa la sheegay in ay isku dartay hanaanka loo maareynayo dhaqaalaha iyo sidoo kale systemka isla markaasna aysan keenin qorshe sugan oo ku saabsan lacagta deynta halka ay ku baxday iyo sida loo maareeyay durbadiiba waxa dhashay shaki ku saabsan in qaar ka mid ah shaqaalaha filla Soomaaliya ay lacagtan ganacsato si marsiisanayaan iyagoo doonaya in ganacsatada lacagta la siiyo kadibna ayagu ay ka sii qaataan oo ay qaar u reemaan laaluusha gaasimaha cusub ee filla Soomaaliya iminka la wareegay Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu ka baaraandegayo qorshaha ku saabsan bixinta deynta lagu yeeshay filla Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waxa ay faafinayeen dawladda dalka ka arriminaysay uu hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee nabad iyo nolol in dalka lagu lahayn wax deyn oo dhaqaale fara badan uu sameeyay balse galka lala wareegay ayaa muujiyay lacag fara badan oo deyn oo lagu leeyahay madaxtooyada Soomaaliya halka sidoo kale la sheegay qaar ka mid ah wasaaradaha inaysan iska bixin korontada muddo ku dhow 2 sano taas oo durbadiiba muujisay in dhaqaale fara badan lagu leeyahay dawladda oo deyn agaasimihii horeete ee filla Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inuu ku wareejiyay agaasimaha cusub shaqaalaha ka howlgalaya madaxtooyada oo iskugu jira shaqaale rasmiya shaqaale raacay madaxweyne Farmaajo oo uu sheegay inay wali noqonayaan dad mushaariya oo ka shaqeeya filla Soomaaliya kana howlgala iyo sidoo kale in ay jiraan shaqaale kale oo ugu yeeray isxilqaan kuwaas oo dadka qaarkiis ay ku sifeeyeen inay yihiin dadka baraha bulshada ka taageera filla Soomaaliya gaar ahaan kooxda loo yaqaan CBB madaxtooyada Soomaaliya waxa xilalkii la wareegay dhammaan madaxtooyada qaybaheeda kala duwan dadka ka howlgalaya sida qaybaha warfaafinta iyo sidoo kale maaliyadda iyo qaybaha kale ee madaxtooyada qaranka lacagta deynta ee lagu yeeshay filla Soomaaliya waxay noqotay markii ugu horeysay oo warbaahinta dawladda iyo sidoo kale bogga gaarka ee filla Soomaaliya lagu shaaciyo in lacag deyn lagu leeyahay filla Soomaaliya oo ah madaxtooyada qaranka tan ayay u arkaan dadka qaarkiis inay tahay fadeexad weyn oo soo food saartay dawladnimada maadaama la maareey karay lacagta qarashaadka ee lagu leeyahay filla Soomaaliya ka hor inta xilka la wareejin waxayna tani muujinaysaa in Farmaajo uu wareejiyay dawlad lagu leeyahay deyn gaar ahaan madaxtooyadii uu ka arriminayay dawladda Qatar ayaa ka codsatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya in la bartilmaameeysan siyaasadda dawladda Qatar ee Soomaaliya dawladda Qatar oo ku guuldareysatay sanadkan inay ku guuleysato faragelinteedii dhinaca doorashada ee Soomaaliya ayaa iminka madaxda dawladda ka codsanaysa in si cadaalad ah loo maamulo siyaasadda arrimaha dibadda oo aan lagu beegsan Qatar
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa gudoomay dhabaal uu soo gaarsiiyay safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Ambassador Hassan bin Hamza Hashim waxaana la sheegay in dhabaalkaasi uu ahaa mid codsi oo ka yimid dowladda Qatar danjiraha ayaa ugu horeyn basalaan soo gaarsiiyay gudoomiyaha golaha shuurada baarlamaanka dalka Qatar mudane Hassan bin Abdullah waxaana la sheegay inuu bogaadinayo doorashada gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowladda Qatar ayaa la sheegay inay codsatay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya aysan bartilmaameysan siyaasadda dowladda Qatar ee Soomaaliya taas oo ku dhisneed taageerada kooxdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale saaxiibkiisa Fahad Yaasiin sanooyinka la soo dhaafay dowladda Qatar waxa ay doonaysaa dekedaha Soomaaliya inay ka howlgasho sidoo kale inay hesho dhaqaalaha ama kheyraadka Soomaaliya qayb weyn oo kamid ah iyadoo doonaysa in siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka sii ahaato inkastoo Imaaraadka Carabtu ay ku guuleysatay taageerada siyaasiyiinta xilka iminka qabtay haddana waxaa la sheegay Qatar inay rajo ka qabto in marka loo eego Xasan Sheekh Maxamuud uusan dhibaato gaar ah u geysanayn Qatar isla markaasna dowladda Qatar ay wada shaqeyn un la yeelan karto dowladda cusub ee dalka iminka qabsatay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo la qorsheynayo in la bedelo safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya wadanka Qatar Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa codsi degdeg ah gaarsiiyay madaxda beesha caalamka kuwaas oo ka dalbaday in Soomaaliya gargaar degdeg ah lala soo gaaro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergeyga gaarka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee bilaantinimada ayaa ka dalbaday beesha caalamka in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dad ka badan 6 milyan oo Soomaaliya kuwaas oo la ildaran abaaraha Cabdiraxmaan oo la kulmay safiirada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ergeyga gaarka ah ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo sidoo kale hay'adaha deeq-bixiyaasha waxa uu dalbaday in la gaarsiiyo gargaar degdeg ah ilaa 3 milyan oo Soomaali ah kuwaas oo ku dhibaataysan gobolada dalka gobolada ugu daran ee gargaarka uu dalbay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa ka mid ah Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Aabay iyo deegaano kale oo ka mid yahay gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya dalabka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la filayaa in maalmo kooban ay uga soo jawaabaan xubnaha beesha caalamka oo la soo gaarsiiyo Soomaaliya deeqaad fara badan dhanka kale tan Cabdiraxmaan oo wakiil ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah la qaatay wasaaradda gargaarka iyo maareynta dowladda federaalka Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale tan madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan wasiirada qaabilsan dhinaca gargaarka wadahadalka ayaa la sheegay in diiradda lagu saarayay isxogweydaarsi iyo sidii loo fidi lahaa gargaar degdeg ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan la kala gaarsiiyo ugu dambeyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo in xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ka qaado Cumar Finish inkastoo isqabqabsi dhinaca saami qaybsiga iyo cidda la siinayo gudoomiyaha ay taagan tahay haddana waxaa la sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu diyaarsaday sidii wax uga bedeli lahaa hanaanka maamul ee caasimadda dalka ee Muqdisho iyadoo gudoon cusub loo magacaabayo waxaa sidoo kale la filayaa in qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir xilka laga qaado si loo dardargeliyo howlaha cusub ee dawladdu ay u baahan tahay inay ka qabato gobolka Banaadir oo ah halka uu dubdhaxaadka u ah dawladnimada Soomaaliya warka ka daawanaysan dunida TV waa geynta sidaas iyo nabadgelyo